halkan waa xanta wararka ku biiro ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran adigoo leegareynaya sidoo kalena sheergareynaya daawade waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono hadduu alweyn raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doona daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ay nagu xiranow Villa Soomaaliya guriga looga arrimiya Soomaaliya oo diiday bixinta mushaaraadkii xildhibaanada bishii July waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin xasaasi ah arintaasi la xiriidha waanu barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan ku falanqeyn doono waxaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo markaasi dhawaan la shaacin doono si hordhac ayaan u helnay xubnaha qaadan doona wasaaradaha magacyada iyo beelaha ay soo jeedaan warbixin ayaan ku gorfeyn doonaa halkan ayaanu ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa hadduu alweyne raalli uu ka noqdo sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ay nagu xiranow waxaa ka mid noqon doona oo aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alweyne raalli uu ka noqdo miyuu u qalmaa in xasanad la siiyo madaxweyne dacwo loo haysto qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan halkan waa xanta wararka ku biiro ka mid noqda daawadayaashii saaxiibada ee nagu xiran leegarey sidoo kalena sheergarey qaybta hoosena araadaadi waxay kula tahay nagu dhaaf daawade Villa Soomaaliya oo diiday bixinta mushaaraadkii xildhibaanada bishii July ilwareed aanu helayno ayaa sheegaya in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya aysan weli u soo dhicin mushaarka bishan July ee maanta ku eg taasi oo arrimo soo kordhiyay ay ugu wacan tahay maanta oo markaasi isniina oo bisha koow ay tahay waxaa la sheegayaa inuu markaasi waa shalayto markaasi oo 31 bisha ahayd inuu kulan u dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka maaliyadda Dr. Abdiraxmaan Ducaale Beyle iyadoo ay ka wada hadleen arrinta mushaar bixinta dhawaan waxaa markaasi mushaarkii ay markaasi u dhacday shaqaalaha hay'adda NISA oo ahaa kuwa ugu horeeya xafiisyada dowladda ee mushaarka heli jiray xildhibaanada baarlamaanku ayaa waxaa weli markaasi qaadan mushaarka sabab lagu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wasaaradda maaliyadda ka codsaday inay dib u dhigto inta lagu magacaabayo xukuumadda cusub saacadaha soo aadan lagu dhawaaqo xoguhu waxay sheegayaan in wasiir Beyle ay aad u waceen telefoonkiisa xildhibaano badan oo markaasi mushaarka ka daahay ka cabanayay sidoo kale guddoonka baarlamaanku ayaa wasiirka weydiiyay arrintan iyo waxa dib loogu dhigayo iyaguna waxay u sheegeen arrimo farsamo inay jiraan lana xalin doono dhawaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka cabsi qaba in baarlamaanku ay diidaan sida la sheegayo xukuumadda cusub oo kalsoonida ay siin waayaan marka la horgeeyo sidaas aawadeedna uu dib u dhigay mushaarkii xildhibaanada golaha shacabka xogtan waxay noo xaqiijiyeen dad ku sugan Villa Soomaaliya kana agdhow iyo xildhibaanada qaar ee baarlamaanka ku jira oo sheegaya in weli akoonadooda mushaaraadkii bishan July aysan ku soo dhicin golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya dhawaan la soo magacaabi doono ayaa soo baxaya hordhacooda ama saadaalinta sida ay noqon doonto ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa inuu 72 saac ay soo aadan uu ku dhawaaqo golaha wasiirada cusub kadib maalmo ay dadaalo wadajir wadeen isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidaynu ogaanayno inta badan xubnaha golaha wasiiradu ayaa la diyaariyay waxaana ka soo muuqan doona siyaasiyiin horey xilal u soo qabtay iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda kuwaasi oo aan ka mid ahayn xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya saadaasha xubnaha golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaan eegi doonaa kuraasta beelaha hawiye Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya in badan ayaa markaasi booskaasi iyo Fiqilis la xiriiriyay waxay u badan tahay in booskaasi uu sax yahay hadal heentiisa marka loo qiimeeyo xildhibaan Cabdirasaaq Cumar oo wasiirka macdanta iyo shidaalka wana reer Hiirana xildhibaan Maxamuud Beene wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah isna sidoo kale waxa la sheegayaa ama markaasi in kursigaasi uu qaadan doono xildhibaan Dr. Cali Xaaji Aadam wasiirka caafimaadka Xasan Macalin wasiirka dastuurka wasiirada
markaasi beelaha dir haddii aynu eegno ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa la isku hayaa ilaa iyo hadda oo isku qabsi ayaa ka taagan mana cadda cidda qaadan doonta iyo inuu mahdi soo laaban doono in kaleba xildhibaan dhakhtar cilmi maxamuud nuur wasiirka maaliyadda ayaa loo wadaa booska beyle axmed xasan wasaaraddiisu lama hubo iyo meesha la geyn doono wasiirada beelaha daarood maxamed sheekh doodishe wasiirka amniga abshir cumar huruuse wasiirka arrimaha dibadda xildhibaan siciid daahir xildhibaan fardowsa iyo xildhibaan axmed taajir xildhibaan fardowsa iyo xildhibaan axmed taajir waxaa la sheegayaa in midkood uu kasoo muuqan doono xukuumadda halka xildhibaan siciid daahir iyana aan la hubin kursiga uu qaadan doono jaamac xasan khaliif ayaa ka mid ah oo aan la hubin weli wasaaradda uu gaari doono wasiirada beelaha digli marfle cabdulqaadir maxamed madaxa nafuran waa wasiirka difaaca iminka ama gaashaandhigga booskaas ayuu joogi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa jeclaysan ama uu jeclaystay oo ay saaxiibo dhow noqdeen ama ay yihiin booskaasina markaasi la rabaa mukhtaar robow cali wasiirka awqaafta arrimaha diinta iyo la dagaalanka xagjirka axmed madoobe nunow iyo xildhibaan jibriil cabdirashiid xasan eelaina wasaaradda xanaanada xoolaha ayuu qaban doonaa kuraasta beelaha shanaad faarax cabdulqaadir maxamed wasiirka waxbarashada khadiija maqsuumi haweenka iyo arrimaha qoyska da-uud aways oo isaguna qaadan doona wasiirka markaasi warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ma u qalmaa in xasaanad la siiyo madaxweyne dacwado loo haysto waa warbixin aanu halkan ku falanqeyn doono daawadayaasha inagu xiranow sida uu qabo dastuurka dalka walow uu farmaajo diiday inuu dalka iyo dadka soomaaliyeed ku dhaqo markii uu talada hayay maantana uu rabaa in isaga lagu dhaqo ayaa haddana waxaa baraha bulshada wareegaya inuu xaq dastuuriga ka maqan yahay kaasi oo ah inuu xubin buuxda ka noqdo golaha shacabka isla markaana ay u bislaato xuquuqda maaliyadeed ee arrintaasi ka dhalanaya ha yeeshee markii aanu dabagalnay arrintan waxaa soo baxday inay sax tahay inuusan weli helin xuquuqdaasi uu leeyahay madaxweyne hore oo xilka wareejiyey xubno golaha shacbiga ka tirsan oo sharci yaqaano oo aan wax ka weydiinay arrintan waxay noo sheegeen inay jiraan dacwado loo haysto farmaajo oo la sugayo inay soo dhammaadaan si madaxweynihii hore farmaajo uu helo xuquuqdaasi farmaajo waxaa lagu haystaa kiisas markaasi dacwadeed oo maxkamadahu ka horyaala kuwaasoo uu sharcigu qabo inuu iska nadiifiyo ka hor intuusan noqon xubin sharafeed golaha shacbiga ka tirsan taas oo siinaysa xasaanad uu dembiyada qaar kaga baxsado ama ku daahiyo waana sababta aan ilaa hadda loo marsiinin jidkii uu ku heli lahaa farmaajo waxaa maxkamadaha ka horyaala dacwado muhiim ah sida dacwadda maqnaashiyaha igraan tahliil faarax oo aan la ogeyn meelay jaani cirib dhigtay muddo sanad ka badan gabadhaasi oo u shaqaynaysay dowladda gaar ahaan hay-adda nisa waxay ku maqan tahay gacanta dowladdii hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo ma jirta baaris caddaynaysa inuu ka beri yahay madaxweyne farmaajo iyo in kale waxaa intii dowladdiisu jirtay la weeraray xildhibaan abdiraxmaan cabdishakuur warsame oo aan xilligaasi ahaa xubin ama waan ahaynba xubin baarlamaan waxaana gurigiisa lagu dilay askar ciidan soomaaliyeed oo dowladdu u shaqaynayay welina si sax ah looma baarin loomana caddeen cidda soo amartay iyo lugta uu madaxweyne farmaajo ku leeyahay dhimashada askartaasi sida ay sheegeen xubnihii aanu la hadalnay waxaa hoygiisa lagu weeraray cabdi qaybdiid oo xubin aqalka sare ah taas oo ahayd dil loo qorsheeyey sidoo ka muuqata qaabka weerarku u dhacay sida uu sheegay isaga iyadoo weliba la sheegay in ciidankii guriga weeraray soo diyaarsadeen ambalaskii lagu qaadi lahaa meydka waana naxdin haddaba lama oga ilaa iyo hadda ogaalka iyo lugta uu ku leeyahay farmaajo dhammaan dacwooyinkan waxay hor yaallaan maxkamadaha dalka waxayna sugayaan in garmaqal loo sameeyo oo la dhagaysto taasina waxay dan ugu jirtaa maxamed cabdulaahi farmaajo si uu magaciisa u nadiifiyo waayo markay dil lagugu tumayo xataa dalka kama dhoofi kartid waana sababta hortaagan in madaxweyne farmaajo uu helo xaqii madaxweyne hore iyo masabkii uu mudnaa madaxweyne hore halkan waa xanta wararka ku biiro uu ka mid noqdo daawadayaashii saaxiibada nagu xiran legareeshargarey qaybta hoosan araahdaada iyo waxay kula tahay nagu dhaaf daawade waad ku maasantahay la socoshada iyo la jaanqaadka barnaamijka yaga daawade